شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. South Africa dhulkii quruxda warshadaha iyo horumarka. South Africa waa wadanka ugu horumarsan ee qaaradda Afrika kuna yaalaan warshadaha ugu faraha badan ee dalka Mareykanka. South Africa waa wadan ku yaala koonfurta qaaradda Afrika oo ku fadhiya masaaxad dhan 1,227,037 kiiloomitir oo laba jibaaran. South Africa waa wadan xuduud la leh wadamada kale ah Namibia, Botswana, Mozambique, Zimbabwe. Wadanka South Africa waa wadanka ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika sidoo kalena waa wadanka ugu dhaqaalaha kororka badan qaaradda. Wadanka South Africa waxa uu kamid yahay wadamada ugu dhismaha qurxoon caalamka sidoo kalena wadamada ugu dhismaha casrisan qaaradda Afrika ayadoo ay gudihiisa ku yaalaan dhismooyin dhaadheer iyo fooq soo jiidanaya dalxiisayaasha iyo dadka marka ugu horeysan yimaada gudaha qaaradda Afrika. South Africa waxa ku nool dadka ugu badan ee asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Yurub kuwaas oo degan gudaha qaaradda Afrika dadkaas oo ah cadaanka South Afrikaanka ah. Sidoo kale waxa wadanka ku nool Hindida ugu badan ee ku nool meel ka baxsan qaaradda Aasiya kuwaas oo ku dhaqan dalka South Africa. Dadka ugu badan ee degan South Africa waa dadka madowga ah kuwaas oo ah kuwa asal ahaan leh dhulka South Africa. tirada dadka South Africa 2018 waxay ahayd 57,725,600 oo qof waxaana kaalinta koowaad kaga jira wadamada ugu horumarsan qaaradda Afrika wadankan oo ah wadanka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika.